بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل: وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وقال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس إلى أن قال: لآيات لقوم يعقلون. آيات كاسي يا آيات كلا أفر بدن إلهي سبحانه وتعالى وحوك جور رميا نعمة بطة وكمد نعموين كإلهي سبحانه وتعالى يا آياتها يا علامات كتوسين يا رب سبحانه وتعالى خالق نمديسا أود ديسا هي توحيد كيس إنفر بدن أينو آياتها القرآن كأكو أرجنا يضع دتك لليه وربط ميدان أركينين يا إلهي سبحانه وتعالى سدوا أرساقنا إذا يكون أبوري وحاك عنتان دونتو أيونه سعونيسو بحمد الله تعالى ما أنت وحنصر عن دونتن ير أنه نعمة إلهي سبحانه وتعالى إلهي آيات كيسة وكتل مامي صو أركينا أو سمركا وحوي لوجو عبرقاته ورنتي إلهي سبحانه وتعالى آيات كيسة لوجا فكره ينمد دونتن وصر عني ومجال بربرة runtii de wax weyn baa ku sugan biyaha Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo dhulka sida uu dul dhigay khayraadka iyo wanaagana uu dhex dhigay bani aadamkiina uu baray qaabkii uu dhex socon lahaa ee uu wax uga soo bixi lahaa ee uu uga faa'iideysan lahaa runtii wax aad iyo aad u weyn weeyi Ilaahay subhanahu wa ta'ala jalla jalaaluhu waxdaaniyadiisana barqaati weyn oo markaa wax weeyi tusinayo weeyi laakiin inna fi آيات لقوم يعقلون بإلهي لها آيات عبر قادش وحي ugu sugan tahay dadka aqliga leh laakiin qofka aan aqliga lahayn waxa laga yaabaa in laga dhaadhiciyo adduunkani wuu iska yimid uuno biyahani meesha way iska fariisteeno cadeedu meesha way iska tagtayo bari iyo biyo dhulku isaga qaybsamay una cid u qaybisay oo ugu tala gashay oo xakiim ah oo caliim oo cilmi badan oo khibrad badani ma jirto de qof aan garaad lahayn oo aan aqli lahayn baa runtii laga dhaadhicin karaa laakiin qofkii fikiraya ee aqligiisa isticmaalaya isla markiiba waa aqligiisu waa fahmaya in waxa cilmiga inta leeg aanu markaa iskaga imanin waxba la'aan aanu ku imanin khaaliq la'aana aanu ku imanin waa aayad Ilaahay subhanahu wa ta'ala dhinac kalena biyaha Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo baday noo dhex dhigay waa tahuur هو الطهور ماؤه الحل ميتته وبي طاهره حداد ku meerato iyo hadaad ku weysaysato intuba ay ku ansaxayso oo aan lagu oranayn waa maartay waxa weeye waa biyo si kaleysane iska daa aan lagu oranaynin dhinac kale wixii ku dhex baqtiya waa xalaal الحل ميتته buu nabigu kaleey salaatu wasalaam baqtigiisuna waa xalaal oo barigi taa waa kaga duwayo xayawaanka baddu isagoo nool iyo isagiyo meyd ahba xalaal buu yahay oo gowrac uma baahna runtii waa calaamad qofka muslimka ah oo ku cibro qaato ilaahayna subhanahu wa ta'ala oo ku xasuusto aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.